قردرة خاتمه يجسيد فقشني لقى عبال دعي وحجرائن عقال وحقرد أغنيهن يدد يقونا قرب جوج يقرح جوج بقى أما بقول جوج سيد اللي يدهضه لقوا حريري مقالة أرع عداية يوم مقالة الله سبحانه إمام الخاتمه هذا هو حوي خاتمه وحي كعرريسي وأنا لقوميستي وأنا لوحيستي وأنا حب أنا لوحيستا هذا بلدن أولد دجن إيجا باشا ماشى شيء خاتمه أساسي شيء أيا وحربتا إني بالكله وإيجا لدجن أي سيدي أي وعبني سي سومالي لان أي يدونا مركز محلي هذا مرق وقبضه تصالحان وحاندين هيا وحي كعبن جرين رلاس عنه أرع عداية يقولي تولا سمكات دمان محل هذا يتي ماشن بوهول اللي يدهدو قرروا وحي أحيد سيدا الله سعطان إني لين سومال لنا نقبح مالي والبقول ويل وكتر سن إذا ماذا أساسي خاتمه أيا أقوص صدق السومالي لنا أما بأقوصته يسياسين يقولون أقوص صدق بنتلان وأجراد كجيران حتى جراد أيا كجيران وبنتلان هذا وطلابة حد كطلابة وقرأوا فريست كونا waxay soo aadaan magaalada Hargeysa Burco Barbara iyo dhanka Soomaaliland oo iyagu u badan ciidamada kadib markii ay la kulmeen dhaqaale xumo mushaar la'aan iyo dhibaatooyin kale beelaha aanu dhalan dhulbahantay ay kamid yihiin fiqishiniga iyo dadka kale ee degan meesha iyagoo aan waxba samayn ayaa xoog inta la soo qabto cuqaashooda iyo waxgaradkooda iyo maxaa la yiraahdaa aytii odayaashooda iyo qurba joogtooda iyo qorax joogtooda wala iska xirxiraa sida hadda ku cad in ugu yaraan 12 ama 12 qof ninkii u dambeeyay shalay la xiray nin caaqila oo waxa ugu horeeyay caaqil beesha fiqshinaa kadibna waxa weeyaan waxa la xiray qurba joog iyo qolol joog wix allaalay wixii fiqshin sheeganaya laga ururiyay magaalada Laascaano iyo magaalada Arcaday oo xabsiga dhexe Laascaano lagu ururiyay anu waxa oranayaa marka this is kan waa dagaal cad oo lagu soo qaaday beesha fiqshin waa niman ayra ayaan la ayra waa niman habar gidira waa niman irira hadda ayaa tii ugu darnayd oo loo yaaba anu I'm telling the truth runta idin sheegaya waligay qabiil kama hadlin iminka hadda waxay ninkii general How iyo 16 dawladood miyam 17 dawladood oo iswata ayaa wax ka qaadi waayay asana Allahu naxariisto general Maxamed Faarax Ciidid dagaalyahanintii taabacsanaa iyo hogaamiye Maxamed Faarax Ciidid umaleyn maayo haddana hartii iska daay hadii Itoobiya iyo Kenya isu soo raacaan inay habar gidir ama ba fiqshin wax ka qaadayaan hartii iska daa laakiin daaroodka jooga kililka iyo kan jooga NFD hadda isu soo iyo kan Soomaaliya jooga hadda isu soo raacaan sidaa darteed waxa idin leeyahay anoo u jeedinaya waligay qabiilka ma hadl maanta dhiiga ay kacay waxa weeyaan 24 saac gudahood waa in lagu sii daayaa odayaasha 9 jirada ah ee dhiikarada qaba ee suuqa laga soo qabqabtay ee u dhashay beesha fiqshin haddii aan la sii dayna waxa aad kasbataan ayaa leedahay dagaal idin kaga iman maayo Isaaq iyo Somaliland dagaalna idin kaga iman maayo daarood kale laakiin waxa aad si toos ah ugu dhawaaqdeen in aad u babac dhigtaan the might of habar gidir ilaah baa weyn oo awood leh wasla joogna dagaalyaaniin baan nahay daraawiish baan ahaan jirnay kida habar gidir wax ka gura habar gidir waxaad ka gurtaan ayaa leedahay dhulbaanto waa inoo dagaal meel kastoo aad dunida joogtaan hadda mar kale biduuni maxkamad biduuni sharci biduuni shay'an in la soo qabto ninka fiqshin oo xabsiga la dhigo maxaa la yiraahdaa inta la iska xiro iyadoo ninka dhulbaantay aan la soo xirayn oo lagu soo eeday ninka fiqshin Soomaaliland bad la socotaa ama aad u janjeertaa ama aad ciidamo u qorays waxaan idin leeyahay daba waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan waa in loo sii daayaa cuqaasha iyo dadka maxaa la yiraahdaa qurba joogta oo badan ee ku xiran xabsiyada magaalada Laascaano haddii aad diidaan waxa weeye war wallaahi billahi tallahi rag ugu adag dhulbaanto ee ugu dagaalyahansan maxaa la yiraahdaa daarood waa nimanka la yiraahdaa maraxaan soo hadday maraxaan hataa idin yimaadaan habar gidir kama xili karaan maraxaan hadday idin yimaadaan iyo ogaadeen oo iswataxtaa ka kililka jooga kan jooga NFD iyo kan jooga Somaliland iyo kan jooga maxaa la yiraahdaa Ethiopia salkeeda iyo kan jooga Djibouti iyo kan jooga
انت بنتلان يميل كستا يجبلان هدو إذن يمادو إذن كما علين كرا رقاس سيدايا عقاشا يددك aan birimageedada ah ee xiran ee u badan maxaa la yiraahdaa waayeelka dhikarka iyo maxaa la yiraahdaa xanuunada khatarta qaba ee aad xabsiyada ku gurtaan shalay ilaa dorar haddaad sii dayn weydaanna waxaan aaminsanahay jilibka ayaan la cayr ama cabsiye yaa labada jilib mid ka mid ah inaan dhulbaad iska celin karin adeer waa la isiqaan jabhad baan hayo qalas baan hayo maxaa la yiraahdaa darwiish baan hayo war darwiish haddaad tahay dad baa calaashada black hawk raggii calaashaday raggaana ka dhasheen exactly amin axmed cabsiyaa ma ayaan la cayr keliya ka adag darwiish haddaad tahay dhul baante waxa weeye rag baa birta calaashada jenaraal howr rag baa maraykanka rag baa dhul ku jida sidii vietnam maraykanka rag baa dhul ku jida calaykum asalaam ubax saciid waan ku salaamay walaa shaqaale maanta reetolkay baa lagu xirxiray niman habar gidir oo walaalaha ayaan la cayro fiqshin la yiraahdo oo awalba edab darro u raaceen dhulbaante soo ma garan yaa ayaa lagu xirxiray meesha la yiraahdo lascaana iyo arcaday waa sirsox wixii ka dhacay 1994 magaalada Kigali ee Rwanda ee loo yaqaanay ethnic cleansing dhulbaante oo ka wada ethnic cleansing maxaa la yiraahdaa gobolka Sool dhulbaanto wuxuu ka wadaa waxa loo yaqaan midab kala soc fadlan hala sheer gareeyo baalkan meel hal gaaro yaani isir soc hadday ka dhigi karaan Gaza sida Falastiin Yuhuud ula dagaalantay inay ula dagaalamaan fiqshin ula dagaalami lahayn laakiin waa la isla joogaa waxa la yiri fardo loo joogo maxaa fuulidood la isugu faanaa waxaan idin sheegayaa 24 saac haddii wax laga qaban waayo anigu wariyanahay reerkaas la xirxirayo ku reeraanahay laakiin iraado magaciisu dhulbaantu niman asxaan lama leh in Cabdillah Xasan wuxuu yiri iska celis wax ku leeyihiin markii la yiri majartaan ka waran mareexaan ka waran saa ka waran wax ka waran qabilka isaaq ka waran qolob wax ku sheegay hawiye ka waran ma garad wuxuu yiri macnaha aqli ka celiya ma la yiri moogtahay xabad qori caradiisa ka celisu yiri qori caradiisa iska celin wax ku leeyihiin markaan waxaan leeyahay haddii 24 saac lagu sii dayn waayo odayaasha dhikarka qaba cuqaasha salaadiinta aqilada mala yacniga loo xiray waxaad ka dheeftaan dhulbaanto ayaa leedihiin magaalada muqdishona hawiya leh oo waad joogtaan hargeysana waad ka xararteen oo gurihiinii baad ka xararteen soo ma garan oo haawanayo iska xirxiran marka waxa weeye waa leedin sida aad u ugaarsatay fiqshin ayaa leedinka ugaarsanaya Soomaaliland iyo Soomaaliya meeshaad geli lahaydeen ayaa laydinka rabaa meesha aad geli lahaydeen anu markaa dab ma shidayo oo talla ayay reebel ay oran maayo waxaan leeyahay still waxaan ogolahay wada hadal sharciga idin degsan ee aad khaatumo degsateen geed hoosti mid dastuur idin ah kulli in lagu xaalo odayaasha la soo daayo maxaa dadka qurba joogta la soo daayo wixii damiin u baahan la damiinto wixii maxkamad in la geeyo laakiin qof xabska la iska haynaya macquul maaha qof xabska ixir af Soomaali maaha ninkani maaha ciidamadii Somaliland kula dagaalamay waa nin dhulka degan haddaan Somaliland aad lahaysay og tag oo ka caynaba tag meelaha tag aad lahayd ninkani arcadeeyo kula dagaa qararu kula dagaa lascaanu kula dagaa buuhoodlu kula dagaa wuxuu kula dagaa ilaa iyo marqaan weyne iyo goob waan iskaranayna dhulba